Topic waa mawduuc about ku saabsan single life nolosha iskaabulnimada Part 1 qaybta koowaad. Topic waa mawduuc about ku saabsan single life nolosha iskaabulnimada Part 1 qaybta koowaad. Being single iskaabulnimadu waxay leedahay it is advantages faa'iidooyinkeeda and disadvantage iyo khasaaro. Being single iskaabulnimadu waxay leedahay it is advantages faa'iidooyinkeeda and disadvantage iyo khasaaro. I think waxaan filayaa it is better inay fiican tahay to stay in lagu joogo single iskaabulnimo when you are young markaad yar tahay. I think waxaan filayaa it is better inay fiican tahay to stay in lagu joogo single iskaabulnimo when you are young markaad yar tahay. You need waxaad u baahan tahay to live inaad noolaato and have fun oo aad lahaato madadaalo. You need waxaad u baahan tahay to live inaad noolaato and have fun oo aad lahaato madadaalo. You also sidoo kale need waxaad u baahan tahay the freedom xurnimo to do aad ku samayn karto what you want waxaad rabto when you want markaad rabto. You also sidoo kale need waxaad u baahan tahay the freedom xurnimo to do aad ku samayn karto what you want waxaad rabto when you want markaad rabto. Being single iskaabulnimadu in your 20s jirkaaga gives you waxay ku siinaysaa lots of time waqti badan to go traveling aad ku safarto, see the world dunida aad ku aragto and experience different things oo aad la kulanto waxyaabo kala duwan. Being single iskaabulnimadu in your 20s jirkaaga gives you waxay ku siinaysaa lots of time waqti badan to go traveling aad ku safarto, see the world dunida aad ku aragto and experience different things oo aad la kulanto waxyaabo kala duwan.